waxaan idin haynaa qiso jacayl oo dhab ah oo ku dhacday gabar Soomaaliyeed. waxaadna kala socotaan janaalka sirta jacaylka. waxaan idin soo tabin doonaa aniga oo ah Saayid Cali. qisada waxa ay ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aaliya Maxamed Shariif. waxa ayna iga codsatay inaan idin la wadaago qisadan aad ku xanuunka badan, si gabar walba oo Soomaali ah ay beri aysan ugu dhicin. qisada waxa ay ka bilaabanaysaa sida tan. Aaliya waxa ay ahayd gabar ardayad ah oo dhigata jaamacad. iyada oo waxbarashadeeda iskaga hoolan ayaa waxa ay jeclaatay wiil dhigta jaamacadda, weliba galaaska ka horeeya. Aaliya jacaylka ay u qabtay wiilka waa uu ku sii ziyaaday ilaa heer waxa ay gaartay isaga oo keli ay ka fikirto waxbarashadeeda, xitaa waa ay ilaawday oo waxa ay noqotay gabar waxbarashadeedii hoos u sii dhacaysa. habeen iyo maalin wiilka ayay ka fikiri jirtay, goormaad heli doontaa, goormaad jacaylkaaga u sheegan doontaa, iyo waxyaabo noocaas ah ayay habeen iyo maalin ku fikiri jirtay. maalintaas waxay ka bilowday jaamacadda asaga dartiis ayay u imaan jirtay oo waxbarasho ma aysan u imaan jirin. wiilkan war muusan u haynin, iyadana cabsi ay asaga ka cabsanayso ayay jacaylkeeda ugu sheegan waysay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa jaamacadda waxa ay qabatay xaflad, meeshii ay ku wada kulmeen labadooda, oo waxa ay ku fadhiyeen laba kursi oo isku dheggan. waxa ayna bilaabeen inay wada sheekaystaan. kaftan iyo sheeko kadib xafladdii waa ay dhammaatay oo waxa ay kala qaateen lambaradooda. Aaliya iyada oo faraxsan ayay guriga imaaday. waa maalintii ugu horreysay ay la hadasho. habeenkii markii la gaaray ayay taleefanka ka wacday, iyada oo walwal iyo cabsi dareemayso. hurdadii xitaa asaga dartiis ayay u waysay oo waa ay la hadashay. wax walba oo qalbigeeda ku jirana waa ay u sheegtay, weliba inaysan ka maarmi karin, dartiisna inay wax walba u samayn karto ayay u sheegtay. asagana kuma adkaynin, waa uu ka aqbalay, waa uuna soo dhoweeyey. waxa uu arkay gabadhaan inay si xad dhaaf u jeceshahay. sidaas darteed ayuu waxa uu ku dhahay, anigaba waan ka helay Aaliya. farxaddeeda lama soo koobi karo. Aaliya waa ay faraxday. farxad awgeeda waa ay seexan waysay, cunto xitaa waa ay cuni waysay. asaga oo keli ayay ka fikiraysaa. xiriirkoodii jacayl meesha ayuu ka bilowday. muddo bila ayay wada socdeen, farxad wada qaadanayeen. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilkii balamiyey Aaliya. waxa uuna ku dhahay, waxaan rabaa inaan farxad kula qaato oo aan kulanno, jabi deganna oo aan ku sheekaysanno. Aaliya maysan ku adkaynin, waayo ma diidi karto kulankiisa. si xad dhaaf ayay u jeceshahay. waa ay wada kulmeen. waxa uuna geeyey gurigiisa. waa ay wada sheekaysteen. sheeko kadib waxa uu ka codsaday inay u samayso wax walba uu asaga rabo. waxa uuna u sheegay inuu adduunka ugu jecel yahay, mustaqbalna uu ka rabo, uusan daqiiqad ka maarmi karin. wuxuu dhahay ereyo aad u macaan oo qalbigeeda farxad gelinayo. Aaliya ma aysan ka diidin. waxay ku dhahday, haddiiba aan adiga ku helayo, wax walba oo aad adiga jeceshahay dartaa waan u samayn karaa. farxaddaada waa aniga farxaddayda, ayay ku dhahday Aaliya. ugu dambayn waxaa dhex maray laba qof isqabta wixii dhex mari lahaa. Aaliya meesha waxa ay ku waysay gabarnimadeedii. saas ay tahay, iyada waa ay ku qanacsaneed, waa ayna ku faraxsaneed, oo waxa uu ugu sheekeeyey inuusan marnaba ka fogaan doonin. xiriirkooda waa uu sii ballaartay. farxad, jacayl, intaba waa ay wada qaybsadeen. dhib ma jirin. wiilka xil walba uu Aaliya u baado waa uu wacan jiray. Aaliyana waa ay u imaan jirtay. waa ayna wada dhaqmi jireen. waxa ayna u wada dhaqmi jireen sidii laba qof isqabta oo kale. wiilka waxa uu doono ayay u samayn jirtay Aaliya. saasay tahay, maalin maalmaha ka mid ah qadartii Alle ayaa imaaday oo Aaliya uur ayay qaaday. ma aysan filaynin. marna waa ay ku faraxday, marna waa ay ka naxday. wiilkii ayay taleefanka ka wacday, weliba si kalsooni ay ku dheehan tahay.
ayay wiilkii waxa ay ku dhahday, uur baan kuu leeyahay. wiilkii waxa uu ugu jawaabay, iga raali noqo walaal Aaliya, uma malaynaynin inaad wecel dusha iga saaraysid. orodoo aabbihiisa raadso ee aniga ha igu nabsanin wecelkaas, ama iska soo xaaqo, waa adiga danta, saa doonta yeel. saas ayuu ku dhahay wiilkii. gabadhii hadal xitaa waa uu ka soo bixi waayey. naqaskii ayaa ku dhegay oo waa ay suuxday. muddo 5 maalmood hadal waa laga waayey, kooma ayay gashay. 5 maalmood kadib Aaliya sidii hore waa ay ka fiicnaatay oo hadal baa laga helay. arrintii ku dhacdayna cidna ma oga. noloshii oo dhan ayay nacday. inay isdisho ayay go'aan ku gaartay.